بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيك قالي دمانتي وايد السلامي حيث كل سلام مع سلامة الإسلام فوق قالي سو حرجينا يا دمانتي إن في عنتهن waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan asxaabta ku xiran channelkayga waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin channelka anigu kaliya iskama lihi waa wada leenahay dhammaanteena waxaan idin leeyahay jazaakumullah khair ilaahay khayr badan hayda siiyo iyo sida wanaag badan ee igu xirantiin ilaahay idinka abaalmariyo maanta waxaan wada saliido maasha Allah tinta nafaqa u taraya tinta ayaa maanta nafaqeynayna saliida aan isku dardarsanayna hadii ilaahay idmaayo saliidahayna waxaa kamid ah saliida xulbada saliida dacarta saliida afakaadhada iyo saliida kharwaca loo yaqaan ama castor oilka iyo saliida qoronfalka saliida qumbaha saliida saytuunka iyo wax allaale wixii saliida haysatid saliid kale oo aad u jeclahay ayaa iga maqan waa iga dhamaatay marka ma aanan haysan marka saliidahan isku dardarsanaayo waxa weeyaan saliida loo yaqaan lowska waa aad u taageero afwan aan jeclahay marka maasha Allah tabaaraka raxmaan walaalahay maxaan maanta saliidahan ay inoo tarayaan horta faa'iidooyinka ay ka helaynaa maxay tahay haddii ka hadallo kale saliida loo yaqaan saliid xulbada faa'iidooyinka u leedahay laana maxay yeelay waxaan markaa isticmaalayno waa in ogaana faa'iidada inoo leeyihiin saliida maxay tahay xulbada faa'iidada tinta u leedahay waxay siinaysaa borotiin waxay maxay tahay cusboonaysiinaysaa lafta tinta maqaarka meesha ka soo baxdo ay u roon tahay iyo meesha unugyada tinta ay ka soo unkanto waxay qoynaysaa oo ay maxay tahay siinaysaa qoyaan lafta tinta meelaha ilaha tinta ay ka soo baxdo waxayna adkaysaa xabada tinta wayna qoysaa waxay kaloo ka ilaalisaa dadka hadii Allah uu daawo ugu daraayo ama si aad laasimtid oo siday tahay aad u isticmaashid dadka bidaarta ay kaga dhacdo madaxa qaybtiisa hore biidnillaahi baari tintana way korisaa waxay kaloo ka kooban tahay maado condition u noqonaysa tinta oo hadad saliidan isticmaashid tinta qallalan oo kale maasha Allah tabaaraka raxmaan qallaylka way ka biinaysaa saliida afakaadhadu waxayna maasha Allah faa'iidooyinkeedu aad iyo aad u badan yihiin waxay ka kooban tahay vitamin E kaas oo ka ilaalinaya tinta waxyaalo badan oo dib u keenayo oo maaragtay keenaysa bi'ada waxay kaloo ka ilaalisaa cadceeda timaha way kala jabisaa siba dadka tintooda sii daayo oo kale maasha Allah tabaaraka raxmaan waxayna adkaysaa tinta aflaaqadana way ka ilaalisaa maasha Allah tinta waxa kaloo siinaysaa qoyaan iyana lagama sheekeyn karo faa'iidooyinka ay leedahay halkan kuma soo koobi karno maasha Allah tabaaraka raxmaan saliida oo la dhaho jawsal hindigana xabiibatul qalbi maasha Allah saliid aad iyo aad u fiican weeye iyana maxay inoogu fiican tinta waxay siinaysaa iftiin iyo farabadnaan tinta haday khafiif kaato kale tin adag bay kaaga dhigaysaa biidnillaahi baari wayna ku badinaysaa maxay tahay tintu marka ay ku caafimaad qabto ayaa maxay tahay inay ku baxdaa Soomahan waxay kaloo tinta u badisaa dhiiga markin oo ku yar yahay oo kale wareegga dhiiga oo kale maasha Allah si fiican ay madaxa u siisaa dhiiga oo way u farabadinaysaa wayna farabadinaysaa aad tinta hadaad u laasantidna way ku dheeraanaysaa qoyaan iyo condition ahaana way yeelaysaa inuu jajabo way ka ilaalinaysaa maasha Allah tabaaraka raxmaan saliidan iyana saytu sabaar maxaan ka faa'iideynaa marka koobaad timaha way adkaysaa tinta way adkaysaa waxayna siinaysaa degdegna way maxay tahay kuugu korinaysaa oo tin dheer hadaad rabtid saytu sabaarka isla ogow waxayna ka ilaalinaysaa ilaahay idankiisa horta wixii Allah kuugu daaweynaya ayaa daawo ku noqda mar walba taawo inaan niyada ku haynaa mar walba ina waxun baynahay waxaan faa'iidooyinka ilaahay waxyaaluhu inoo sakhiro ina siiyay ayaa maxay tahay ka faa'iideysanayna marka aad marsanaysaa isticmaalaysana biniya saafiya iyo inuu ilaahay kugu caafiyo inaad maxay tahay niyada gashatid wixiina aad laasimtid
maahan hal mar baan sameynayaa qalas markaas maxay tooday waxba iimay tarinin maahan caafimaadku degdeg isku soo bood maahan caafimaadka horaa loo dhahay tartiib tartiib waaye waxyaalaha hadda ku dhibaayo dhan haddaad si tartiiba aad u laasimtid waxyaalihii daawada kale biidnillaahi ilbaari step by step waad ka bogsanaysaa laakiin haddaad tiraahdid maxay tahay no kama aanan bogsanin ama waxba iima tarin ama sidan iima ahan markaa waa iska dhaafaya ma fiicna markaa wixii waa inaad horta marka hore inuu shifaa yahay niyadda gelisaa wax kasta ood marsatidna haddaan ilaahay kuugu talagelin wax kuu tarto ma kuu tarayso marka mar walba waxaan leenahay waxyaalaha aan sameynaa maahan wax sixriya waa wax maaragtay step by step haddaad laasimtadood u sabirtid aad faa'iidadooda arkaysid waayo ma fiicna inaan ku dhaho leyla habeenkii baad marsanaysaa subaxiina waxaad arkaysaa tintaadiyo fariisanaysa taas waa xaaraam kadabkuna xaaraan weeyaan laakiin waxyaalahani faa'iidooyin way leeyihiin faa'iidadoodana waxaad helaysaa markii aad u sabirtid oo aad maxay tahay sidii tahayna u isticmaashid maasha allah saliideenan saliid sabaarka maasha allah tinta way kuu jilcinaysaa iftiinna way kuu siinaysaa waxayna ka ilaalisaa tinta qalaylka iyo tinta inaad maxay tahay kaa biibto kale iyo iltihaabaadka iyo maaragtay ku dhaca ama cuncunka ku dhaca lafta tinta lafta maxaa la dhahaa maqaarka yacni meesha tintu kasoo baxdo infection iltihaabaadka ku dhaco kale infectionka kale dadka xoqoo kale maasha allah tabaaraka raxma way u fiican tahay dadka agoolka lahoo dhan way kaala dagaalamaysaa agoolka way kaa daaweynaysaa biidnillaahi ilbaari waxay kaloo tinta u sameynaysaa waxaa jirta jirkeena mar walba maxaan u sameynaa scrub soo maahan dead skin ayaa kasoo daataa kadaalika madaxana sidoo kale wayaan isaga laftiisu scrub buu u baahan yahay marka jirka maaragtay khalaaya ama oo dhintay oo kale maasha allah tabaaraka raxma way kaa dhamayaan way kaa bixinaysaa dhanaanka madaxoo kale xumuuda oo maaragtay lafta madaxoo kale maasha allah way kuu toosinaysaa tintana aad iyo aad buu dharaysaa oo dherer baad ka helaysaa tinta biidnillaahi ilbaari saliida qoranfalkana iyana lagama sheekeyn karo sidoo kale intan oo saliida ay maanta isticmaalayno saliid aan haddeen maanta indhahna faa'iidooyinkeeda aan soo koobayna ma soo koobi karno saraaxatan ma soo koobi karno laakiin markaad isku darsatid saliidihii maasha allah tabaaraka raxmaan oo aada laasimtid waxaan rajaynayaa isbedel badanna tintaada ka dareentid saliidahan maahan qof weyn oo kale in isticmaali karo aniga waa isticmaalayaa ilmahayga dhammaantoodna waa u isticmaalayaa maxaa ugu isticmaalayaa markaan rabo inaan u qubeeyo ka hor maalin walba nafaqa ma sameyn karay oo mar walba waxaa kugu intaad soo qaado wax iskumada dari kartid waxaa laga yaabaa inaad degdegsantid waxaa laga yaabaa inaad time u haynin oo ilmihii aanad maxay tahay u awoodin 30 daqiiqo ka hor oo kale saliidahana u marinaysaa saliidan markaa u marisid madaxa oo aad ugu radisid ilmo yar hadduu yahay baxa kaga xiran ugu duub mara ugu duub haddii maaragtay uu xamili karo qof xamilaya yahayna ilaa ilmuhu 7 jir meelaha yahayna waad ugu xiri kartaa laakiin ilmaha yar beebiyada waxbaba kaga xiran u mari saliida dhaaf markii cabaar ku yar ciyaarto ee tintii madaxa u gasho qabso ka dhaq saasan sameeyaan ilaa beebiyadeeda u yar waan u marinayaa saliida marka uu qubaynayo ka hor u marinayaa saliidaha marka uu mariyo cabaarka maxay tahay waa ciyaarayaan hataa korkana creama u marinaya marka ciyaaraan ay isku dhididaan wasaqdi jirka iyo tinta ay maartay saliid gasho ayaad qabanaysaa waad ka dhaqaysaa maahan saliidahan saliid tinta loo deenayo qofkii raba waa u deysan karaa laakiin anigu ma daayo saliid kasta oo isku dardar ah waxaan sameeyaa tinta waxaan ku hayaa 2 saacadood anigu 3 saacadood caruurta yarna 30 daqiiqo kagama badiyo maasha allah tabaaraka raxmaan saliidaheena marka isku soo dardarsano ee wixii saliid ah ayaan ku soo shubano dhalada aan ku darno saliida loo yaqaan joosal hindiga waan ka yar badinayna saliidaha kale caagada kale saliida ku jirtaana u eeg safadana waa saliid saytuun baan ku shubtay caagadahaas kama daadiye caagad kasta oo safa iiga dhamaato ma tuuro wax kale aan isticmaala saliida waxaan ku shubtaa lowsta saliida qumbada ay shay aan isticmaalo saliida isku dardarsado ayaa maxay tooday ku shubtaa saliid saytuun ha ahaato xabad soodooyinka ah saliida ku dhaxbaysta ha ahaato ayaan ku darsadaa maasha allah tabaaraka raxmaan
saliidaheena saas ayaa inoogu diyaariyeen. haddana maxaan habaysanaynaa shaambadii lagaga dhiqi lahaa. shaambadan waxaa isticmaali karaa adigu waa isticmaali kartaa, beebiyadaadana waa u isticmaali kartaa caruurta yaryar. ani shaambadan beebigaan u isticmaalayo maxaad sameynaysaa, waxaan ku ridayaa qoronfol. shaambada haddii xabada yar tahay waxaa ku ridaysaa ilaa 10 xabo, tan weyn hadday tahayna ilaa 15 xabo ku ridaysaa. ha ka badanin qoronfolka 10 xabo ilaa 15 xabo. waayo haddii ziyaada looga badiyo wuxuu sameeyaa waxa laga yaabaa inaad ka dareentid madaxa cuncun oo kale. laakiin shaambada haddaad qoronfolka u baratid oo aad ku darsatid maasha allah tabaaraka raxmaan, faa'iidadeeda lama soo koobi karo. qoronfolkana aslanba sidiisa hore ayuu u yahay daawo cadiima weeyaan. waxyaalaha badan ilaahay inoo geliyay dhiraha aynan ogeyn ayaa ciida ka badan. maasha allah 15 xabo oo waxaan kala baxaya qoronfolka ama dhagayaraha qofka sida u yaqaano. waxaan sameynayaa shaambada ayaa ku ridayaa, waan ku ruxayaa. markaan ku ruuxa maahan inaan ka bixbixinayo, marka bixbixinayo saasaan ugu dhaafayaa, ku isticmaalaya. tinta maasha allah waa ku dheereynaysaa, iftiin ay ku siinaysaa, way nafaqeynaysaa infectionka oo dadka cunka oo kale waxyaalahaas oo dhibaya fitriyaadka la dhaho tinta way ka daaweynaysaa. sidoo xubta oo kale maasha allah tabaaraka raxmaan. shaambada haddii isaan ugu habaysatid qoronfolkan kuli waad ka sheekeynaysaa. tijaabiya maaha waxa aniga yacni waa safe. xitaa waxaad u isticmaali kartaa caruurta yaryar. anigu shaambadan waataan ilmaha ugu dhaqo ama waataan anigu isticmaalo. anigu maxay tooday aad isticmaali karto dadka waaweyn ee shaambooyada isticmaala. waayo shaambadu markasta shaambada waxa ku fiican aan lahayn xumbada badan ayaa tinta u fiican. waayo xumbada badan waxa ku yeelayaan tintii ka qaadaya nafaqada. shaambada beebiga markaa ma lahan wax dhib ah ama kiimika badan kuma jirto. saasay tintaadii tinta awlaadaba ugu fiican tahay. maasha allah waxaad soo qaadaysaa qoronfolkii waa ku ruuxaysaa isna. si fiican ayaad ugu ruuxaysaa, saasaad iskaga daynaysaa ilaa ay shaambadu kaaga dhamaanayso. maalintii kaa dhamaatana xaagad kasto shaambaad soo iibisid marka shoppingka ciyaalka usoo sameynaysa sidoo kale ama saliidaha iyo waxyaalaha u habeynaysa sidoo kale waad ku dhex ridaysaa, wax dhiba ma lahan. marka intaas marka saliida hore kusoo ridisid tinta 3 saacadood ku haysid hadhow shaambada kaga soo dhaqdid. maxaan anigu isticmaalaa laano tintii saliid la'aan ma ahaan karto. saliidahan culusna ma marin kartid oo mar walba kama dhaqi kartid. waxa ku fiican in saliidaha kale in laga dhaqo. aniga saraxatan anigoon iga ahayn iska dheh saliida safa aad iyo aad ayay anfacday. saliidaasaan isticmaalaa caruurta tinta marka u dabaayada u isticmaalaa. anigu waan isticmaalaa daily markasta tinteeda shanleynaya wax yar oo been marinaya. tintii waxay ii siinaysaa way ii kala daadinaysaa, iftiin bay ii siinaysaa. tin waxaad moodaysaa markasta in maxay tahay loo soo sameeyay fooneeya way kala daadanaysaa. tintan saliid baa la mariyo waa isku dhagdhagaysaayo ma lahan. maasha allah tabaaraka raxmaan. aniga waxyaalaha badan aan u isticmaalo tinta insha allah waa inoo soo gelinayaa. waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen. ila soo tijaabiya oo maxay tooday ku dadaala insha allah. hana loo sabro markaad wax sameynaysid. ma ahan maanta sameeyay waa in bari aan natiijada heshaa. ma ahan waa in yacni muddo sugtid waad maxay tooday step by step aad u sabirtid insha allah natiijo badan oo fiican oo ku raali gelinaysa inaad ka heshaan ayaa rajaynayaa. anigu saana u habaystaa shaambada iyo saliidaha. marka saliida badan baan habaystaa isku nooc kuma noqdo. nooc markay ka dhamaato nooc kale isku darsadaa. waayo mar walba saliida madaxa maaragtay wuxuu u noqonayaa permanent. marka bil markan isticmaalo ama 2 bil waan ka bedelaa saliida kale ayaan isugu dardarsadaa. insha allah waxaan rajaynayaa inaad ka heshiin oo walaashin Umu Cabdiraxmaan oo markasta jecel waxyaalaha ka faa'iido inay la qaybsato. please videogan share iyo like iyo comment iyo subscribe iyo siiya. jazakumullah khair. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.